waxaan igu kalifay inaan haybadaas aamino productigan waa sameeyay aniga niyad baan hayay laakiin awood ma lahayn awood Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta wuxuu gaarsiiyay sooskaas aan sameeyay in ay ka hadlaan dadkii cadaanka ahaa ee cunay inay warqado ka qoraan inay tasigiisa ka hadlaan aniga ma ogeyn to be honest nin oday oo saddex dhal iga gatay dukaan cadaan ah oo Wisconsin ku yaala anoo dhex taagan baa waxaan iri why you need 3 sauces 3 barrel markaas wuxuu igu yiri because of low sodium wuxuu yiri I have a blood pressure and I never find low sodium sauce in this country which is huge weeyaan Ilaahay baa ma aragtay awooda leh aniga marihi aniga waxaan ku barbaaray agoonimo dhibaato badan aan soo maray kama dhalanin reer riij ah waxaan ka dhashay poor family agoonimadeedii anjeerada maalin waa heli jiray maalin way ii goyn jirtay laakiin waxaan ka qaaday adeeg iyo karti baan ka qaaday Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu agoonka dhigaayo uu ku tijgareynaya laakiin anaga Soomaali ahaan iyo human being ahaan markii waalidkeen aan qof weyno qalbigaasina noqdo laakiin training waay aabahay markaan waayay waxaan ogaaday inaan nolosha maalin cuni karo maalin cabi karo haddii aan training-kaas adagoo caruurnimadeedii aan soo maray aan lahayna maanta heerkan ma gaareen qaxooti kuma soo ilmo dhaleen banaan kuma soo dhiig baxeen ma aragta istiragalka aan soo maray uma adkaysteen laakiin maxaa i caawiyay marka ilmaha ahaayaan rafaadka iyo dhibaatada bartay maalin bariiska waa heli jirnay reerkeena maalin waa weyn jirnay kama faanayo waxaan ahaa waxaan laakiin ku faanayaa waxaan ahay who I am and meesha maanta taaganahay alxamdulillah marka walaalayaal sheekadeyda halkaan kuma soo koobi karo is long story sheekadeyda hadda idinkaga sheekeeyo gabadhaydan Sihaan markaan dhalay oo uurkeeda lahaa anoo walaca 3 casho cunto ma cunin 3 days hooyo pregnant ah oo xaamilo ah oo cunto cunin oo qaxooti joogto waa garan kartaan dhibaatada ay leedahay maxaa la dhahaayay waxaan xasuustaa odagayga suu ordaayay buu wuxuu soo helay wiil saaxiibkiis ah ba 2 xabo mandaasi ah u soo duubay oo yiri warnin adeero qoreeco labadii mandaasiga ahaa intuu xaansho ku soo duubay oo uu jeebka soo galiyay oo maqaayadii lagu siiyay ilaa gurigeyga oo 4-5 mile ah wuu soo orday orod uu igu keenay mar allaale markaan cunay uu beerka igaga dhacay mantagaan bilaabay because 3 cashaan qatanaa odagayga maalintaas uu igu ooyay anigana waa la ooyay wuxuu igu yiri inaan ku guursadaba totally ma ahayn markaas waxaan dhahay adiga wax problem ah oo koos gareysay ma jirto waxaan qadar Ilaahay waaye inaan sabarno aan laga rabaa habeenkii Ilaaha iska bariyay subaxeenina albaabka nagu soo garaacay waxaan ku sheegayaa qofka bini aadamka ah markuu Allah subhanahu wa ta'ala imtixaamo oo imtixaanka uu ku sabro Ilaahay subhanahu wa ta'ala faraj iyo makhraj gaaban u furaa ويرزقهم من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلهي wuu ku filan yahay adoonkiisa markuu talada u dhiibto habeenkii waa iska seexanay subaxii alaseyn inaan ugu soo garaacay wadagayga qaraabo ahaayeen wuxuu dhahay shaqaan ku haayaa soo bax $300 wadagayga shaqo ku bilaabay alxamdulillah nolosha maalinba meelay taagneed waa ka soo gudbay Mareekana imaanay paycheck to paycheck inuu nin xun oo madow ama cadaan ah oo i xukumaan diiday waxaan dhahay waxaan ani ima anfacaan waxaan ku fakaray in arintan keeno waa ka shaqeeyay juhdi badan time badan waqti badan aan galiyay wadankan waa ogtihiin product hadaa soo saartid qofka qaadanayo malaha hatta FDA hadaa heshid marketka gacantaada ku jirtaa inaad dadka training siisid inaad wixii bartid inaad advertisement sameeysid is a lot of work to do waa adag tahay waxaan sameeyay xaafad baa u orday maanta Columbia Heights aan ku gadaaya bari waxaan ku gadaaya Woodbury Free Farmers Market baa jira oo lacag yar laga qaadayo fiir maalin waxaan tagaa Idayna
maalin waxaan tagaa Apple Valley maalin waxaan tagaa South St Paul maalin waxaan tagaa Brooklyn Center maalin waxaan tagaa Conraber maalin waxaan tagaa Alka River meel la dhaho magaalada sasaan ugu wareegayay metro area xaafad to xaafad maxaan sameynayay productigiyan waxaan baraayay dadkii waa cadaan indha buluuga kuwa inta sas ku fiiriyaan ka cararayaan aarintooda ku siinayaan waxay leeyihiin naagta madow maxay ka soo doontay meeshaan ma badeganeen kama haro waxaan dhahaa dhadhami please taste first markay cunaan ilaahay muxuu qadaray inuu malab ka dhigay dhalay hore u sii qaataan hoostaan yes ka dhahaa ma kaa gaday horta ma fahamtay marka waxa weeye sabar adduunka sabra lagu gaaraa aniga goolkayga ma aha cadaan intuu u huruufay inaan ka cararo goolkaygu waa dhaladan guri walba oo Mareykanka ah jikko kasta inaan miiskeeda saaro waa goolkaygu waana gaaraya insha Allah biidhnillaahi baari magacayga waxaa la yiraahdaa Hashim waxaan deganahay magaalada Bloomington waxaan soo ziyaartay kulankan oo Saadiya Sauce and to be honest run ahaantii waxyaalaha qaarkood markii aad dhadhamisid kaliya aad dareemaysaa yani product suu macaan yahay suu u fiican yahay suu ku soo jiidanayo 3 sauces waaye I think waxa waa mid hot iyo mild iyo sweet midka sweet ka ah ayaan tasgareeyay so far labada kalena oo noqon doonaa to be honest anoo oo xayeysiis waxba iga ahayn caaw baan ka fuusaadaya insha Allah waan laba dhalo ka soo qaadanaya ilaahay duudmo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan taageero u hayaa Saadiya Sauce bilowgeedii hore xataa aniga waan joogay ilaa hata waa joogaa waa special basbaas laga qiiliyo waaye cuntada socodsiiya ma fahanteen gata isnooleeya dad iska dhiga dadka qofka walaalka markuu fikrad keenana waa in la taageeraa Saadiya Sauce gabar Soomaaliyeed oo maxay heeto productigeeda aad u fiican yahay waa markii ugu horeysay xaflad sidaan oo kale loogu qabto goobaha la isugu imaado magaalada Minnesota dadka ganacsatada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay support gareeyaan ee doontaan suuqyada caalamiga ah ganacsigeedana waa mid fiican basbaaska waa basbaas adduunyada dhan laga yaqaano hadda meelo badan ayaa la geeyay ninkii sheer ka gadanayna waa u furan tahay waa sharaf iyo sumcad Saadiya waxay u soo jiiday Soomaalida sumcad weyn ilaahay khayr siiyo waa unprecedented way barnaamijkeeda wali Soomaalida sidan oo kale uma aysan sameeynin product micna u sameeynay ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay hal la taageero hana laga qayb qaato sheerarka soo haad macaan buu ahaa waa tijaabinay waana la shaqeynaa family-ga ma sha Allah sooska aad buu yahay mid aad iyo aad u dhadhan fiican u leh oo runtii aad qof walba uu garan karo marka uu dhadhamiyo maartay ma soo gaaro Saadiya Sauce waxa waaye say u sheegtayba macaanka ay ku sheegayso wanaagga ay ku sheegayso sharafta ay ku sheegayso wax walba uu leeyahay I tried the hot sauce and it's very unique and very good, super good. Sauce kan waa dhadhamiye aad buu wanaagsan yahay waa ajabiyay marka waxaan leenahay mtaana kambanigan ilaahay kambaniga hore u socda Allah ka dhigo insha Allah ma sha Allah ilaaha garab qabto waa gabar aad iyo aad u fiican oo karti leh Allah so delicious ma sha Allah waan ka helay ma sha Allah aadaan uga helay Saadiya Sauce lagama sheekeyn karo ma sha Allah tabarakallah waa dhadhamiye basbaaskan ruuxaanta inaan qaato caawa ku qasbanahay waxaanu la kulannay wax weyn oo Soomaali sharaf iyo wanaag bawle aan filayaa sanadaha soo socda inaynu bilyaneerada dunida ka qayb galayno Saadiya Sauce waxa aad loogu bogay dadka dhan oo Soomaalida oo Minnesota aad ayay uga heleen Saadiya Sauce waxay cunsiisaa bariiska iyo baastada dadka abitaadka ay ugu furtaa Saadiya Sauce waa mid aan ilmaha waxba ka dhimaynin oo ah in markasta ilmaha hadii wax loogu darayo ayna dhibsanaynin kadibna abitaadka u furaya hamoogaan hana ka maqnaan Saadiya Sauce waxa way the best I try myself in badana cunay ila long time ugu yaraan hadda 4 sano waa cunayay waan taagnaa maalinkay suubinaysa alaana hadda marka waxaan leeyahay fadlan hal laga qayb galo Saadiya Sauce waa the best bismillah welcome dhamaantiin soo dhawaada marweyni mudanayaal caaw waxa halkan loo joogaa
xafladan aadka qaaliga oo ah ee lagu soo bandhigayay productgan cusub ee ay soo saartay gabadha walaasheena Sacdiyo laguna magacaabo Sacdiyo Gourmet Hot Sauce waa basbaas xaqiiqatan aan goobjoog u soo ahaa goob bilowgiisii oo ku bilaabmay markii ugu horeysay $15,000 Mareykanka maantana uu taagan yahay in ka badan 20 milyan oo lacagta Mareykanka ah isla markaasna waxaan ugu hambaleynayaa guushan iyo farxadan inay u soo hayatay mujtamaca Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan isla markaasna loo baahan yahay in laga qayb qaato loona duceeyo maxaa la garab istaago haddii la yiraahdo Liban Hussein telefishinka qaranka Soomaaliya holka Safari Minneapolis